ramadaantan waxaad ku arki doontaa goobtan ilmo in aan soo dejinayno tusaale ah 30 mawduuc oo gaar u ah anshaxa guryaheena oo aan ugu talagalnay maalin kasta inta aynu ku jirno bisha Ramadaan. Mawduucyadan ayaa ah kuwa ku saabsan anshaxa akhlaaqda ama qiyamka aynu leenahay. Waxaana ugu talagalnay in ay caruurta yaryar ka qayb qaataan soo gudbintiisa iyo soo jeedintiisaba. anshaxa labaad waa islaamnimadeena ayaan ku faraxsanahay oon ku faanaa. Ogeysii ilmahaaga islaamnimadu inay tahay naxariis, cadaalad, sinaansho, akhlaaq wanaagsan, habdhaqameed adduunyo iyo aakhiro. Ku dhaqan islaamkeena suuban sida ugu wanaagsan ee aad awoodo. Ogow waxa tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu wax ka barto. Waan ku faanaa diinteena Islaamka. Iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. Waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.